بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي باب مهدله وحن مركه وروما اللقيا إلهي مركه حقا برنامج كان السقع عدي سوق بنقابسي أولوين تسميسي أيان مهد علين العلنية هل كانوا علنية مركه حقا اللي ما نضع نص النقطة اللي ما نضو الشرف بين مدينين waxaan u maleynayaa in kastoo rag waaweyn arkay jiray maanta dhalinyarada arkayna anigu mudana waan soo fadhiyay dalka waxna waan ka ogahay waxaan u maleyn lahaa kuwii dalka kicin lahaa inay maanta kuwii noo joogay yihiin insha Allah waxaan safarayaa iyaga laftigooda wax badan mudad ku tabaya oo ah wax qabad muuqda oo isbedel xoog la sameeyaa kuwa laga sugayaana waa dhalinyartiina laga sugayaa oo dadku aad ugu hanweyn yihiin kalsooni buuxdana lagu qabo dibad iyo gudaba waxaan filayaa kullay dardaarankaygu kaliya ma aha ummadoo dhanba wayna la qabtaayo xamxamta waa iska maqasheen inaad isbedel keentaan wala sugayaa maanta ummadana u soo dhaadhacdaan oo albaabada laga xidhan oo suuqa loo soo dego oo baahida taala suuqa iyo dadkaba ad hoos ugu soo dhaadhacdaan maadaama dhalinyartiin oo xogogaalatiin oo dalka kuwii ku soo koray ee aqoonta u lahaa ee dadka garashada lahaa atiino maanta kursi u fadhiisateen ilaahay waxaan ka rajaynayaa horta inuu idin garansiiyo xaqa runta ah ee maanta isbedel lagu wada kalsoon yahay sameeyo ilaahay idin ka dhigo waa naga duco waxaan la hadlayaa dadka dibadda jooga ama gudaha jooga mar walba dawlad baan ma hadiya jeer hadal haynaa dawladdu waa shicibka maaha intaan dooranay ma inta la doortay kuraasta ku fadhida waa dad la doortay inta xilka laga sugaya inay wax qabtaan oo ay walaaloobaan oo wax isku taraan oo u dabcaan xitaa laftigooda kuwii ay shalay doorteen inay u dabcaan oo ka daayaan aflagaadada iyo magaranaysa qaylada iyo hadaan lala jaan qaadin de socon maayaan iyaguna wayna la soo harayaan iyo xaqan joogno meemanayaan marka waxaan idinka rajaynayaa shicibka reer Soomaaliland meel kastuu joogo war dawladda hala raaco hala jaan qaado de jacaylada aad u qabtaan Soomaaliland haddaydan la jaan qaadin jacayladu waa been marka aad u qabtaan Soomaaliland shalayna waan dooranay maantana waan aflagaadeynaa isma qabanaysadee oo mid meesha talama sidaad shalay u doorateen ee ugu faraxdeen ee ugu sacabtumayseen caleemaha ugu luleyseen hawsha ay maanta hayana caleemaha ugu lula taasi waa shicibkaan sheegaya